warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My lovely people kusoo dhawaada YouTube channelkeena waa weelkii dunida iyo tarkii bulshada. Anigu waxaan ahay Xafsa, anigu Abshaar Axmed Daahir, iyo waliba anigu Nuur Aadan Cali. sidaad hore nooga barteen waxaan idin soo gudbinaa barnaamijyo idin farxad geliyo idin xasiliyo. Hase yeeshee maanta barnaamijku uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore. farxadan way ka duwan tahay farxadii hore. hase yeeshee barnaamijka waxaa marti u ah Abshaar Axmed Daahir iyo Nuur Aadan Cali. waa laba gabdhood oo labadeeda garba ah, mar walbana igu dhiirigeliya wax walba aan ahay bulshada magacaan ka leeyahay. Abshaar Axmed Daahir waa gabar aan social media iska baranay waqti dhow ii soo jirtay musaafo aad u weyn ee imaaday degmo aad u fog si ay iga qayb qaadato farxadda maanta sida aad title-ka ku soo aragteenba. waxay iga qayb qaadanaysaa farxadda maanta oo ah 1k subscribe aan gaaray 3 bil gudahooda. hase yeeshee waqtiga ii saamixi waayay. aaday u mahadsan tahay Abshaaro oo ah gabar Soomaaliyeed aan isbarnay magaalada oo riskigeeda iyo cabsigeeda ee aad u badan tahay ayaa nafsadeeda ii soo hurtay kalsooni badan ii muujisay si ay farxadda igala qayb qaadato. aadaan ugu faraxsanahay gabar social media aan iska barno oo taageer ii muujiso inaan la kulmo maantana video ila duubto ee igala muuqato YouTube channelkayga. gacanteeda bidixna waxaa fadhiyo Nuur Aadan Cali oo ah gabar saaxiibadeeda qaaliga oo waxbarashadan wax isla barano waqti badan aan isla qaadan oo ah maanta gabadha Soomaaliyeed oo saaxiibado aan isku ahay. Abshaarna waa saaxiibteeda Hamaseere. aaday u mahadsan yihiin gabdhahaas oo dhan maanta ayay ila qayb qaadan doonaan sidaan hore idinku sheegay title-ka maanta wuxuu ku saabsan yahay aan uga hadli doonaa videoga. hase yeeshee waxaan kusoo dhaweynayaa gacanteeda midig oo fadhisa Abshaar. kusoo dhawaad. waan dhawahay. waxaan inta uga hambalyeynaya Xafsa Sayid Cali oo saaxiibteeda ah oo mar walba aan ka daawan jiray YouTube-keeda. ugu horeen waxaan ku bartay YouTube aan ku baran page aan ku bartay page-kaas aan mar walba kala hadli jiray wax walba kala socon jiray xadiisyadeeda wax walba. laakiin maanta waxay gaartay hambalyo aad iyo aad weyn YouTube-keeda aan ku xiranahay. hambalyo wada maxaa u foorsanay wada YouTube-keeda aan ku xiranahay. hambalyo alfa mabruuk xaybti. mar walba waxaan arkaa dadka kugu xiran, dadka commentiga soo qoraayo, dadka xadiisyada dhageysanaya, xitaa WhatsApp iyo group-yada dadka kugu xiran casharadaada ayaan ka mid ahay. mar walba waxaan ku leeyahay horumar waa dareensanahay inay farxadda kaa dambalan tahay. mar walba waxaan ku leeyahay hore u socod wanaagsan. mar walba waxaan ku leeyahay hore socod wanaagsan. alfa mabruuk alfa mabruuk. aada u mahadsan tahay. haddana waxaan kusoo dhaweynayaa Nuur Aadan Cali. soo dhawow. aadan u dhawahay maadaama ay tahay maalinta ugu horeysay aan kasoo muuqdo walaasheeda qaaliga ah marna saaxiibadeeda YouTube channelkeeda taasoona ah munaasabada ay gaartay 1k subscribe waliba 3 bilood gudahooda. midaasaan ugu hambalyeynayaa dadaalka ku gaartay. sidaas horta waxay la kulantay caqabado badan kaasoo qofka duu horumar u socdo wuxuu la kulmayaa caqabadooyin. dad way kugu taageerayaan waxaa sameynaysid, dadna way kaasoo horjeesanayaan maadaama ay badnaayeen dadka ku taageersan waxay waday khayrka ay waday. dad badanaa dhahaya markay rabto inay kor usoo kacdo hoos u liidaya waxaad adiga wadid horumar kuma gaaraysid, YouTube-ka heerka aragtidna kama gaaraysid marar badanaa la dhahay. sidaas anna waan dhiirigelin jiray. so waxay leeyihiin ma ahan xadiisyada ama quraanka aad akhrinaysid ama dadka dhiirigelinaysid YouTube waxba laguma noqdo. just iska dhig qof sida gabdhaheen Soomaaliyeed hadda oo kale waxyaabo qaar iska soo duduub jalbaabka tuuro raaxada yar waxyaabo xiro but that's not impossible serious. laakiin hadda waxay horumarkeeda ku gaartay 1k subscribe ilaa 3 bilood gudahooda xadiiskeeda iyo allaha la jiro mar walba khayrka ay faafinayso. hambalyo alfa mabruuk. waa mahadsantihiin. waqtigaasna ay waqtigooda ay qaadanayeen. runaantii aad ugu faraxsanahay. kuma faraxsani 1k aan gaaray balse waxaan ku faraxsanahay 1000 qofood oo khayrka jecel igu soo biirtay YouTube-kayga mar walbana i taageerta. 1000 qofood kuma faraxsani 1k maanta in yani oo TikTok YouTube-kay 1k yani aan gaaray. waxaan ku faraxsanahay 1000 qofood oo wanaag iyo khayrka jecel igu taageerayso inaan helo. runaantii ma aqaano sidaan ugu mahadceliyo. hase yeeshee mahadsanidin ayaan leeyahay meel walba ay joogaan. waxaan u mahadcelinayaa halkan ugu mahadcelinayaa asxaabta ku xiran TikTok-gayga. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa asxaabta ku xiran Facebook-gayga. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa asxaabta ku xiran page-gayga. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa asxaabta inta badan aan wax isla barno iyo iidow meel walbana igu taageero igu dhiirigeliyo yani
wax walba oo maanta aan qabanayo garabkeyga mar walba igu dhiirigeliyo wax walba aan ahay dad badan waa arkay yani dismoral wax badan ii muujinayo dhahay yani saan maxaa la horumar laguma gaaro macnaheedu maaha ani horumar uma soo jeedo inta badan horumar uma soo jeedo waxaan usoo jeedaa yani bulshada Soomaaliyeed inaan wax u faa'iideeyo YouTube in badan waan daawadaa waan fiiriyaa wax badan waan arkaa waxaan islahaa wax cusub la imaa barnaamijkan page ayaan ka waday asxaaba igu dhiirigelisay inaan sameeyo YouTube hadafkayga muusan ahayn aniga waxaan ahay ardayad wax barata inta badan waqtigeyga ma siiyo sidaad iga muuqato amba aad dareesantihiin YouTube waxaan ka maqnaa markay ugu badan tahay hadda 3 isbuuc sababtaan ugu maqnaa waxay tahay waxbarashada ayaa ii furmatay waqti ayaan u waayay hase yeeshee hadda waqtigu ii saamaxay aad ugu mahadcelinayaa asxaabta mar walba ay dhaysay i weydiinaysay casharadii tubaysay yani waxaa dareemayaa waxaan maanta awooda ahmiyadda ay leedahay iyo muhiimadda ay dadku leedahay baahida ay u qabaan ayaan dareemayaa marka la soo weydiiyo waxa aan u soo gelin waayay sababta aan u maqnahay sababta aan u maqnaa waxay tahay waxbarashadeeda ayaa ii furmatay ayaan ku mashquulay hase yeeshee waxaan idin soo gelin doonaa muuqaalo fara badan idin farxad geliyo sidaa wada ogtihiin asxaab fara badan ayaa igu xiran asxaabtu xiran waxay u kala baxaan qaar waxay jecel yihiin xadiistan waxaan u soo gelinayn mar walba iska daawadaan ee ku naxariis ku dareemaan adduumaanin yani xasilooni inay ku dareemaan dadna waxay jecel yihiin waxaan soo gelinayn xadiiska yani in ka faa'iideystaan sidoo kale waxyaabo yani farxad gelinayaan inaan u soo geliyo maadaama waxaan YouTube u yahay asxaabo fara badan ayaa barnaamijyo fara badan oo kala nooc ah ayaa iga soo dalbadeen hase yeeshee waan soo gelin doonaa insha Allah hase yeeshee maanta asxaabay mahadsanidin يعني ما أقان واحد كدوان أذين له مهتمين aad u mahadsantihiin dhiirigelintiina aad mar walba ku taageertaan inay horumarkeeda hore u sii wado xadiisyadeeda dhiirigelinta idin dhiirigelinayso alf mabruuq saaxiibadeyda هذا ما سنا بشارة وجدا هذا ودارنتها عندي اسكتوا سوتها مسابقة اسمه داري كي معدي serious ماشي أنا كل شيء معدي واللي بدرتينا يعني فرحة سي إذن يقيب قاعد وجهي لك والله ما أقان وحمانت وقمات عليا ده جير لاين مانت يعني ما السنة وحكد ونرده أصحابتي إذا هاد يداون يساي بشارة ينور وانده لها ما السنة وحكد ونتجران لكن ما السنة وحكد ونمجران لكن قلبي يعني كلام السنين وحى يعني إيتي إن قلبي يا كترين معي always أنا جنا جرب كأنا ها وركبنا نقول ما حشيء يعني بشار أنا ودار انتهى مدالي هاي أوكي سؤالك ويدينا يا ما أنت هذا يوتيوب كله سؤال ويدينا yes أوكي أوكي بشار دنك أكيد إن حاسة سيد حويدين لها horta marka horeeto waxyaalo oo aad iyo aad u fiican inaan u sheego marka hore waxa waaye zamankan gabdhaha jiro waxa waaye badanaa YouTube way leeyihiin dad waxa arkaysaa YouTube ku soo duubo waxyaalo kaleeto si ay wiji ugu raadsadaan ama subscribe ama like and views marka xabso waxa waaye dadka zamanadan YouTube sameystay haddana wax khayr soo geliyo marka waxa weydiin lahaa marka ay bilaado YouTube qaabka qofka kugu dhiirigeliyay in xadiisi soo gas maadaama aad tahay qof dhalinyaro maskaxdiisa waxyaalo kaleeto ku programsan inuu soo geliyo waxyaalo kaleeto soo views ama magac ku helo marka qofka kugu soo dhiirigelisay in xadiisi waxaas maadaama aad tahay qof xadiisi dhankaas ku fiican aad iyo aad aan casharada u dhigayso haddana waa lagu soo dhiirigeliyaa qofka asxaabadiisa kale waalidiintiisa kaleeto garabkaaga kaleeto marka qaabka lagu soo dhiiri qaabka u duubtida kaleeto هذا ما سنت يعني سؤال أنت بدن دتك ويسوي يعني قف من السوشيال ميديا كجل سؤال بدن على السوي يعني رناهنتي على السوشيال ميديا وحكو صبيري لو تكون توان يصدق لي يا صبيري وحنو جري لقى صوب بلاو لو تكون صدق هاي تمن كأكثر لقى صوب بلاو إلى يوتدوي تمن كم إن دايركت يعني جري يعني السوشيال ميديا ما كسو مخن جرين لكن وحا هاي قف يعني بالشدة وحو فادي سوي دب وحو وين ضد بدن يمهت عليين إن دايركت يعني جري لكن مرة يعني صبيري دايركتي أو صبيري وحنا يعني مركز soo bandhigay yani bulshada ay arkeenaya dad badan waxay u codsadeen yani kilibyada yaryarka aan soo gelinayo
dhiirigelinta marka axaadiista wax badan yani bulshada u faa'iideynayo ayaa maxaa liiga codsaday maadaama youtube-ka gabar youtuber yani dadka oo axaadiis amba wax u faa'iideynayso ay ku yar tahay amba lisdhihi karo ma jirto inaa youtube sameeyo barnaamijkaas aan soo geliyo maadaama muuqaalada aan soo gelinayo aad ay u gaagaaban yihiin aan youtube kuwa dhaadheer soo geliyo si ay dadka wax uga faa'iideystaan waxaan igu dhiirigeliyay asxaabteyda ku xiran page-kayga iyo facebook-kayga aad ay ugu mahadsan yihiin run ahaantii ma aqaano waxaan ugu mahad celiyo hase yeeshee way mahadsan yihiin run ahaantii qofka social media markuu ku jiro wax badan oo la kulmaa dadka qaar waxay ku arkaan inaad tahay qof kibir badan qof isla weyn laakiin alxamdulilah qof bashar bani aadan ayaa ahay markiisa hore xandhuuf ahaa yani bani aadana iskana waxaan ahay anaga waan is ognahay waxna laga sameeyana waa ognahay yani mutakabirka ma fiicno kibirkan allah subxaanahu watacaala uu diiday ma yihi qof kibir badan ma yihi qof isweyn waxaan ahay qof walba oo soomaaliyeed oo la wadaagto amba wax walba oo la wadaago soo dhaweysa fikradiisa la hadla dadka qaar aan maxay yihiin qof isla weynaa tahay yani dadka haddaad hadli waaya macnaheedu maaha inaa isla weynahay waa dareemi kartiin inaa ahay qof ardayad ah waa dareemi kartiin inaa ahay yani familigayga inaa ku mashquulsanahay yani gabadha wax kasta waa dareemi kartiin laakiin boqolkiiba 99.9 waa fahmi kartiin boqolkiiba 99.9 asxaabta ugu xiran ahmiyad waan siiyaa waqtigeyga ayaan huraa si ay niyadooda wax kale u galin yani dembina ay yani dembi ay u galin waxaan aniga ahayn markay iga sheegayaan dembi ayay galayaan aniga waxba igama dhibays yani because waxaan ahay waan is ogahay aniga waxaan ahay xabsa waxaan ahay waan isla ogahay qofka kale oo ilog waa allah subxaanahu watacaala عادي أنا والله ما حسنتها مع الدم أي جوابت عريضنا okay aniga dhankeyga su-aal ma weydiinayo saaxiibadeeda kuwas mar walba garabkeeda ahay waan la socdaa xaaladaheeda wax walba ay iyada kusoo dhacaan way la wadaagtaa waan dhiirigeliyaa waana waxyaabihii dhibaaya ama waxyaabihii xunna waan ka reeba so waxaan leeyahay hooyadii ku dhashay baa ammaan mudan ninkii ku helay نصيب لك so hambalyo aad mahadsantihiin labadeyda garbood nuure iyo bishaaro oo ah dhiirigeliyaasha mar walba nafsadeeda dhiirigeliyo sidoo kale aad aan ugu mahadcelinayaa booqashada ay soo booqdeen waa markii ugu horeysay ee youtube-ka kasoo muuqdaan mahadsanidin guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkayga maanta waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkayga sidoo kale waa ku mahadsantahay haddii aad subscribe saarteen لايك comment كومنت and share waa dhankiina wasalaamu calaykum ورحمة الله wabarakaatu